maayirka degmada Balugubadle Cabdiraxmaan Imaan Jaamac iyo maayir ku-xigeenkiisaas oo dagaal gacan ka hadlay u dhex maray habeennimadii xalay ahayd ayaa ilaa xalay habeennimadii ku jiray saldhigga dhexe degmada Balugubadle labadan mas'uule dawladda hoose degmada Balugubadle ayaa saaka subaxnimadii la hor keenay maxkamadda gobol degmada gobolkaasi Hawl halkaas oo dib loogu celiyay saldhigga ay ku jireen ilaa xalay habeennimadii haddaba waxaa noo suura gashay inaanu xildhibaanada golaha qaarkood wax ka weydiino xadhigga labadan mas'uul waxaana ka mid ah hadaladoodii markii aanu maqlay gacantaan ku qaban wax dhibina ma jirto wax xalkeedina waan ku jiraan oo dhameynayna waana mas'uuliyiinteedii goorihii sideedii iyo rubcina ay gacan ka hadal dagaal gacan ka hadal ay geysteen iyagoo mas'uuliyiinteedii wax hoosaadoo dagaalkaas ku salaysan ma ka leedihiin golahaan hadaatiin hawaan ka leenahay maanta ayaan u farsanaa ma marin doontaan markaa xeeroosaadkiina sharciyadayda iyo qawaaniintayda kaga beegan hawaan marinaynaa sharciga kama baydhano maayirkii maayir ku-xigeenku waa dee xasaaniyad bay leeyihiin xasaaniyadda laga qaadan waayo in la xidhana maaha ilaa xalayna saldhigay ku jireen maadaama maanta maxkamadda la keenay oo weliba lagu tala jiro in ay sharciga la mariyo maxaa taasi gol ahaan idiga qorshaysan annaga gol ahaan waxaa nooga qorshaysan waxaanu leenahay xeer hoosaad waxaanu leenahay guddi anshax marin markaan kiiskaa baadhno waxaan marinaynaa anshax cabdiraxmaan samariye TV-ga caalamiga oo Cable TV xarunta gobolka degmada Balugubadle